shirkadda xanaanaynta geela ee abco ayaa qada sharafeed ku maamuustay madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici. qada sharafeedna ay shirkadda abco ku maamuustay madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland ayaa ka dambeysay kadib markii wafdi ballaaran uu hogaaminayo madaxweyne ku-xigeenku ay martiqaad rasmi ah ka heleen gudoomiyaha guud ee shirkadda abco Cabdilaahi Xaaji Xirsi. munaasabadan qada sharafeedka oo ay ka qayb galeen madax dhaqameed, cuqaal, mas'uuliyiin iyo marti sharaf kala duwan ayaa ugu horeynba waxa madashaasi ka hadlay maamulka ku-xigeenka shirkadda abco Maxamuud Ciise Xaaji Xirsi, waxaana hadaladiisii kamid ahaa sida tan. ku hadlaya magaca shirkadda abco xaqiiqatan shirkadda abco yani mashruucan maanta joogno ee abka daayiri waxay saartay mas'uuliyad badan oo yani la taaban karo. waa mashruuc yani ka qayb qaadanaya horumarka dalka si fiican yani ugu kala misaal ummadeen inay wax qabsan karto oo waddanka horumari karo, waddanka wax laga soo saari karo yani ummadan iyo dalkan u faa'iida. marka anagu yani doorkii shirkadaha waxaan filaynaa inaan yani door weyn ka ciyaarno inaan shaqadan aad u qabanno. waxyaalo naga dhimana way jiraan oo aan xagga dawladda inay doorkeeda iyaduna ka qaadato aan heshiinayna way jiraan insha Allah. iyadana waxaan ku rajaynayaa inay dawladdu ka iman doonto oo ay mashruuca si fiican u hirgeli doono. aad iyo aad baan ku mahadcelinayaa Mustafa Waxdad oo xogayaha golaha dhexe xisbiga talada haya Kulmiye iyo Suldaan Tuulo oo kamid ah salaadinta gobolka Togdheer oo iyaguna halkaasi ka hadlay hadaladoodii waxa kamid ahaa sida tan. shirkadda abco oo Cabdilaahi Xaaji Xirsi madaxu yahay waxa uu casuumeen madaxweyne ku-xigeenka iyo wasiirka Maxamuud Xaashi iyo madaxtooyada casuumadii waan idinka aqbalnay si wanaagsan baan idinka aqbalnay. waanu idin barakaynaa mashruucan faraa quruxda badan leh samayseen ee geela iyo xoolaha ku dhaqdeen aydun cawska ku beerteen aydun dalkii ka muujiseen sida wax uga soo bixi lahaayeen mabruuq afsana baan idin leenahay. mudane madaxweyne anigoo ku hadlaya gobolka Togdheer, afka degmada Qoyta, afka beelweynta awal bari, afka shirkadda abco waxaan ku leenahay mudane madaxweyne soo dhawow dalkaaga iyo dadkaaga iyo gurigaaga ku soo dhawow. madaxweynenimadaada iyo xilkaad ummadda u haysana kugu soo dhaweynaynaa, xilkaad xisbiga u haysana kugu soo dhaweynaynaa, saaxiibtinimadana kugu soo dhaweynaynaa. waxaanu ku leenahay adiga iyo golahaaga wasiiraduba soo dhawaada. waxaan idinka mahadcelinaynaa qaabka hanaan socodka wanaagsan ee aad horumarka dalka u wadaan higsiga aad higsanaysa. gabagabadii waxaa halkaasi ka hadlay madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici, wuxuuna shirkadda abco uga mahadnaqay qada sharafeedkan ay ku maamustay, waxaana hadaladiisii kamid ahaa sida tan. سميد وحيد الله استيتو جميل عشان يتعلم هي حسيس هذا هناك هذا حاليا مليار شرف يوم عبي وانا كنت بدوني قالوا ناس كثير وانا كنت احسن لها يبقى تشتغل يا ما اللغه هي ما جرسه اللغه هي كبتها وكيرا خلق عليه عارف انه ومحمد إبراهيم حسن محمد بريتش شبكة عالمية هلوناج نيوز برو.